soo dhawaada ku soo dhawaada barnaamijyo taxane ah ee joogto noqon doona ee aad kala socon doontaan Hegan Official. Waxaa idin tabinaya anigoo ah Cabdullaahi Sida Sheekh Xasan. Sheekooyinka aan maanta idin hayo waxaa ka mid ah 4 gabdhood oo ahaa dhalmadays. Dumarka ma garanaysaa gabdhaha dhalmadaayay oo 4 ah. iyo qisooyinkooda sida ahaa intii ay hadaynu ka gaarno 2 ama 3 ama waxaanu ka gaarno ama hal baynu sheekada ka sheekayn doonaa. Hadda ka hor waxaa jirtay gabar dhalmadaysay oo joogtay dalka Soomaaliya magaalo ka mid ah. Magaaladaas iyo gabadha magaceeda ma doonayno, laakiin magaalooyinka Soomaaliya magaalo ka mid ah ayay joogtay. Gabadhaasi maalmaha ka mid ah ayay nin guursatay. Ninkii markii ay guursatay waxay dareentay ninkan inuu yahay nin caqli yar. Waxay go'aansatay ninkaas wuxuu ahaa nin shaqeeya. Waxay go'aansatay inuu lana baashaalo aysan dabna u shidin, dharna u dhaqin. Gabadhu marka waxay samaysay markay 7 bari wada baashaaleen ayay waxay tiri niyo aniga waxaan u malaynayaa uur baa haya markay tiri waayahay buu yiri. Maalin kale markay joogtay waxay isxunqaacisay waxayna tiri anigu cunada aan guriga ku kariyo ma cuni karayo, marka waxaan rabaa cunada inaan maqaayad hebla cunadeeda ayaan jantay ka helaa, maqaayad hebla cunadeeda waa inaad ii keentaa. Ninkii halkiiba maqaayad hebla cunadii ka soo qaadi jiray. Maalin dambe ayuu wuxuu ku yiri ma wax noo karisid. Ninkuna nin ilmo jecel buu ahaa. Marka waxay tiri xubniya noo kariya maanta waa noo karinayaa. Way karisay. Waxay dhiig iyo been waxay u qastay fiinto iyo midho waxay qastay oo dhanaanisay. Waxay tiri ur iyo wax u samaysay. Waxay tiri ilmihii baa iga dilmay maanta. Wayna is dhigtay. Markaas dhakhtar iyo waxbaan ku geynayaa buu yiri. Waxay tiri dhakhtar haddii aan geeyo daawo haddii aan isticmaalo daawooyinka waan ku sii jiranayaa, xasaasiyad iyo waxbaan ku qabaa. Marka waka haye maya uu yiri waxaas ma ka yeelaye xaqiiqada waxaa ah inaan sidaa yeelo. Waxay tiri waayahay. Waa la israacay dhakhtarkii way tiri anaa u tagaye adigu shaqooyinkaaga iyo danahaaga iska haye buu yiri. Nin dhakhtara bay u tagtay way la ballantay. Waxay tiri niyow daawada lacagteeda ninka nooga qaad ka dhow daawada waan soo celinayaa lacagtana waxbaan kuu deynayaa waxna waa qaadanayaa. Haye buu yiri. Ninkii waa loo tagay gabadhii wax laga qaaday wuxuu yiri cudurru soo qoray lacag badan ah. Lacagta waa ninkii shubay. Daawadii way la soo qaaday. Daawadii way hoos ka celisay. Ayro gaban oo gurigeedina way is dhigtay. Dhowr bari soo caafimaaday. Markuu wax bedel yar sameeyay dhiig ilmihii baa ka dilmi jiray. Ninkii waxay tiri dharkii dhaq buu yiri. Dharkii waxay tiri anigu ma dhaqi karo oo ii soo urayaan balaa ka soo uraysa. Dharkina ninka odaga ahaa asaga ayaa lagu dhaqay. Marka dharkii hadii lagu dhaqay ninkii waa yaabay. Ninkii wuxuu muddo sidii ahaadaba ninkii nin khabiir ayuu tagay. Wuxuu yiri naagta warayso. Naagta horta markaad la baashaalisid marra ma yeelatay caado ma yeelan buu yiri. Dareenkeeda ka waran dareenkeedu wuxuu yiri waa 40. Wuxuu yiri waxaad fiirisaa marka aad la baashaalaysid dumarku markay heerka dumarka aan dhalmadayn ay yihiin waxaad ku arkaysaa biyaha dareenka oo biyaha horgalka u ah baad ku arkaysaa oo badan. Haddii ay dhalmadaysana biyahaas ayaa yaraan doona. Arrinka tijaabi ama uur ha lahaato ama isan lahaana arrinkaas aad ku arkaysaa. Ninka haye buu yiri
qoftii u tag arrinna uga hirgeli waa marka subscribe saara qaybaha dambe la